Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid Allah u naxariistee Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde. Nuur Cadde ayaa waxa uu ku geeriyooday waddanka Ingiriiska kadib markii la sheegay inuu ku dhacay cudurka halista ah ee COVID-19. Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xeer Maareeye ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde, Ra'iisul Wasaarihii hore Soomaaliya. إنا لله وإنا إليه راجعون. هرئة الصومالية مدن نور حسن حسين نور عدي وهذا كوجيريودي مقالة لندن وأيامها وحنون لقى عبس قبوا إنه أها كورونا فايروس وجو حنون سنة دلك UK رئيس وزراء هرئة الصومالية أنا قاكو هذا يمجع وزارة طبعا aan rajaynayo mar dhow in madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha ay ka hadli doonaan oo tacsi iyo diri doonaan ummadda Soomaaliyeed la qaybsan doonaan. Waxaan tacsi halkan uga diraynaa qoyskii iyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay ra'iisul wasaaraha hore qiimaha leh nin waddanka Soomaaliya waqti dheer u soo shaqeynaya shaqooyin kala duwan oo badan oo waxtar leh dalka u soo qabtay waxaanu leenahay Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo kulligeena qoyska uu ka baxay Nuur Cadde. Cabdiraxmaan Kambaale, Som News TV, Muqdisho.